kulan waxaan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadaan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa wararka ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywood-ka waxyaabaha laga qoray xidigada filmada soo socda iyo sidoo kale isku dhacyada filmada qaar iyo jadwalada filmada qaar laga bedelay iyo haddii filmada qaar ay baaqdeenba haddaba muuqaalkan ayaa maanta waxaan ku bilaabeynaa xidigada laga soo bilaabo Barabas ilaa Akshay Kumar xidigadii filmada ugu dambeeyay ee flop ka noqday kuwaas oo rajeynaya markaan in filmada soo socda ay noqdaan kuwa guula gaara waa ilaa iyo 5 xidig ee Bollywood-ka iyo sidoo kale kuwa soodka iskugu jiro ana ku bilaabnay Barabas ayaa waxa uu sameeyay laba film ee flop noqday labadii film ee ugu dambeeyay sida Saho iyo sidoo kale Radheshyam aktarka ayaa markaan waxa uu diyaarsan filmo xiiso leh kuwaas oo ka mid yihiin ama lagu arki doono filmada Adi Purush, Salar, Project K, Maroti, Next iyo sidoo kale Spirit xidiga ayaa haatan waxa uu raadinayaa hidkiisa koowaad kadib loo flop is xigtay waxaana loo rajeynayaa in filmkiisa Adi Purush uu noqon karo film guul weyn gaar maadaama Kriti Sanon iyo Saif Ali Khan ay la wadaan tooraha labaad ee liiska ku jira waa Akshay Kumar ayaa wuxuu ka mid yahay xidigada ugu waaweyn ee Bollywood-ka laakiin 2022 waqti fiican uma ahayn xidigan maxaa yeelay waxa flop ka noqday saddexdii film ee ugu dambeeyay sanadkan u soo baxay sida Bakshan Bandai, Samrat Prithviraj iyo sidoo kale Rakshan Bandhan si walba ahaatee taageerayaashiisa ayaa haatan waxay baahi u qabaan ay isugu laayeen filmkiisa Ram Setu kaas oo lagu wado in Diwaliga la soo daayo taas oo la rajeynayo in uu wacdar ka sameeyo karo box office-ka liiska sidoo kale waxaa ku jira xidiga Ranbir Kapoor ayaa sanadkan wuxuu ku soo laabtay filmkiisa Shamshera kaas oo noqday film flop ka noqday box office-ka filmka ayaa haatan waxa uu diyaarsan filmkiisa Brahmastra, Love Ranjanath iyo sidoo kale Animal kuwaasoo leenka ugu jira xidiga filmadiisa socdaha filmkiisa Brahmastra ayaa waxaa la rajeynayaa in la daawado September 9keeda ee 2022 kaas oo la xiiseynayo sidoo kale la rajeynayo in filmka xidigan uu noqdo mid dib u soo nooleeya xirfadiisa maadaama falabadii maalmaha dambe isku raaceen xidiga Ranbir Kapoor sidoo kale waxa ay liiskan ku jirta Kangana Ranaut, Jugmantal Hekia, Bagna, Telefi iyo sidoo kale Dakat ayaa Kangana waxay ka noqdeen flop xiga oo 4 film ah hagaag xidigta ayaa markaan waxay rajeynaysaa in filmkeeda soo socda lagu magacaabo Tejas oo box office-ka guul waaweyn ka gaaray sidoo kale oo u furo daaqadooyin ka xirnaa muddooyinkan ay ahayd in flop xidigta ay isdaba kaceen waxa ugu dambeeyay liiskeena xidiga Shah Rukh Khan filmka Zero ayaa wuxuu noqday mid burburay koorna waxaa ka flop garow filmkiisa Jabha Dhamat Sijal xidiga ayaa markaan wuxuu ku dhibanaa sanadihii dambe box office inuu guulo ka gaaray xidiga ayaa markaan 4 sano kadib wuxuu rajeynayaa in filmkiisa Patan uu noqdo film guulo weyn gaara kaas oo ay la wadaan xidigada John Abraham iyo sidoo kale Deepika Padukone waa arki doonaa xidigadaas iyo filmadooda waxyaabaha ka soo kordha ama haddii ay jiraan in ay filmadaasi u noqdaan kuwa u guuleysta maadaama ay la daaladhacayeen maalmihii dambeba flop xidigadan haysta way jiraan kuwa kale liiskan ku jiro asaati kuwan ayaa ugu muhiimsanaa ee aan isdhaanay daawadayaashina waa la wadaagi kartaan waa hagaag daawada dhinaca kale waxaan u eegi doonaa isku dhaca filmada Barabas iyo xidiga kale Hrithik Roshan ee filmadooda Fighter iyo sidoo kale Salar waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyay filmka Salar kaas oo wadaan Barabas directorna oo ka yahay Barashnath Neel in la daawan doono laguna jadwaleeyay 28 bisha September 2023 waxaana soo saaray ka Vijay Kiragandur filmka ayaa wuxuu mid lagu soo bandhigi doono action heerarkiisa sare ah iyo sidoo kale waxyaabaha lagu bartay xidiga Barabas ee alaaba doorarkiisa filmada lagu arko kaas oo kaga yaabsan doono taageerayaashiisa iyagoo wada sugayaan taageerayaashiisa filmka ayaana wuxuu saameyn la imaaday kadib markii lagu dhawaaqay ama markiis koowaad ba la soo saaray firista lagu xidhaan amaba aragtida koowaad ee filmka maantana ayaa waxaa la soo daayay posterka ama la soo saaray kaartada filmka iyo sidoo kale xilligii la daawan doono xiisaha waxa uu yeelay filmkan ayaa wuxuu yahay inuu yahay film Pan Indian project ama mashruuc Pan India kaas oo lagu soo daayin doono ama lagu daawan doono 5 luqadood filmkaas ayaa waxa isku dhici doonaan filmka Hindiga ee Fighter kaas ay wadaan Hrithik Roshan iyo sidoo kale Deepika Padukone sida horeba filmka ayaa waxaa lagu jadwaleeyay in la daawan doono Republican Day-ga ama maalinta Republica ee 2023 asaatee waxaa dib loo raray oo la geeyay isbuuca Gandhi Jayanti filmkan ay wuxuu yahay mashruuc labaad ee ka wada shaqeynayaan xidiga Hrithik Roshan ee directorka Siddharth Anand kadib filmkooda ee 2029 la daawaday
walba Siddharth Anand ayaa haatan wuxuu mashquul ku yahay filimkiisa Batan kaas oo ay Deepika Padukone iyo sidoo kale wadaan Shah Rukh Khan waxaana door muhiim ku leh John Abraham dhinaca kalena Hrithik Roshan ayaa waxa haatan uu soo dhameystiray duubista filimkiisa Hindiga ah ee dib loo sameeyay Vikram Vedha kaas oo ay la wadaan Saif Ali Khan waxaana oo haatan uu bilaabay inuu duubitaan ku bilaabo filimkiisa Fighter kaas oo Deepika uu la wado waana filim isku dhici doonaan xidiga Barabas la arki doona waxyaabaha ku soo kordha isku dhacaasi iyo hadii la kala weecin doono iyo haduu yahay isku dhac la xaqiijiyo oo filmadaasi ay isku dhici doonaan ugu dambeynna waxaan u eegi doonaa maxaa ka cusub filimka xidiga Rajinikanth ee Jailer haduu warkaas uu run yahay waxa la sheegay in Tamanna Bhatia ee filimkaasi ay ka soo muuqan doono jilaaga hogaamiyaha filimka ee la wado Rajinikanth filimkaas uu yahay filim la wada sugayo in la daawado filimkaas ayaa director waxa ka ah Nelson Dilip Kumar waana film action iyo sidoo kale madadaalo dhameystiran ah iskaas oo wado xidig ugu weyn Tamil ee Rajinikanth si kastaba inkastoo uusan warkan xaqiiq ahayn in laba xidig ee Tamanna Bhatia iyo sidoo kale xidiga weyn ee Rajinikanth ay wada shaqeyn doonaan hasaatee xidigta ayaa waxa la xaqiijiyay kala hor in ay qayb ka tahay mashruuca filmka Ramya Krishnan kaas oo lagu wado in ay duubitaankiisa oo bilaaban doono bishan aan ku guda jirno ee Agoosto amna dhexdeedaba la bilaabo doono markaan ogna shaqada filmka Jailer ka socota ayaa wuxuu yahay mid lagu duubay Hyderabad ee studio weyn ee Stylish Alim Hakim filimkan ay wuxuu yahay filimka 169 kaas oo ka soo muuqdo xidiga Rajinikanth waxaana soo saaray Kananaji Maran ee shirkadda Sun of Pictures iyo sidoo kale Anurag Scorin ee muusiga ee leedahay waan arki doonaa waxyaabaha kale ee filimkan ka soo kordha iyadoo maanta ay ku beegneed 75 guuridii ka soo wareegtay maalinta xurmada Hindiya ee qadatay iyadoo inta badan filimada maanta waxyaabaha ku cusub lagu soo bandhigay iyo waxyaabaha kale ee mustaqbalka xidigada la xiriiraba waan arki doonaa waxyaabahaasi wixii ka soo kordha aad u mahadsantiin alaba inaad nagala jaan qaadaan halkaan sidoo kale aad nagu dhiirigelisaan subscribe-ka iyo like-ta iyo wax oo dhan aad baad u mahadsantihiin kankiisa xigana sidaas iyo nabadgelyo